waxaa saaka ka bilowday guud ahaanba magaalada Buuhoodle dabaaldega munaasabada kowda Luulyo waxaana dhammaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ay isaga yimaadeen dhammaan xaafadaha ku yaala magaalada Buuhoodle. ugu dambeyntii ayaa waxay shacabku isugu soo biyashubteen garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium halkaasi oo lagu soo bandhigay gabayo dabaaldegyo buraanbaro qiirale iyo ilaa khudbado dhinacyo badan taabanayay oo ka turjumaya xuska maalinta qaran ee kowda Luulyo. waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle waxayna si weyn u cabireen dareenkooda farxadeed ee ku aadan xuskan maalintan qaran. maanta waa maalintii kowda Luulyo waxaan u malaynayaa dhalinyaro fara badan oo halka joogta inay soo kowda Luulyo inayan arkinba oo intii dawladdu ay dhaxsanay bay wada dhasheen laakiin dad badan oo odayaal ah oo dumar ah oo waqtigaa joogay baa jira. waa maalintii ay midoobeen labada gobol Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfureed waa maalintii la isku daray. kowda Luulyo waa maalintaynu gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga ka qaadanay caalamkii Soomaaliya ee aad aragtaan ee buluugga ah waa maalintii aynu samaysanay wey. waa maalintii xorriyadda Soomaaliya ay qaadatay. waa maalin weyn, waa maalin aan la yaraysan karin, waa maalin mudan in la xuso oo looga dabaaldego dhammaan Soomaaliya oo dhan. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo. dawladdaas maanta la dhisayo wixii khalkhal ku wadaa ha dhiceen. dawlad Soomaaliyeed ha la helo, kala go'mo galin. Soomaaliya waa mid, calankeedu waa mid, jiritaankeedu waa mid. gumaysigu ha dhaco, wax kala qaybinaya ha dhaco. Soomaaliya ha noolaato, Khaatuma ha noolaato, Khaatuma ha noolaato, Khaatuma ha noolaato. cadowgeedu ha dhaco, cadowgeedu ha dhaco, cadowgeedu ha dhaco. sidoo kale waxaa halkaasi wacdara ka muujiyay xubnaha haweenka gobolka Cayn oo iyagu halkaasi ku soo bandhigay suugaan cajiib oo ay kaga qayb qaadanayeen munaasabadan ballaaran ee kowda Luulyo kuna weyneynayeen calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
dhankooda munaasabadan ayaa waxaa kala qayb qaatay shacabweynaha mas'uuliyiin iyo waliba madax ka tirsan dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya oo hogaaminayay madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel waxaana ugu horeyn halkaasi khudbad ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya Maxamuud Sheekh Umar Xasan sheeginayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo aan ugu hambalyeynayno labiyo konton guuradii ka soo wareegtay midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee 1960kii waxaanu u soo jeedinaynaa dhammaan ummadda reer Khaatumo meel kasta ha joogtee hambalyataa la mida oo u gaar ah maadaama ay yihiin buundadii iyo biriijkii isku xidhayay ummadda Soomaaliyeed waxaan dhammaantood leenahay qof kasta oo Soomaaliya oo jinsiyad Soomaaliya wata oo cirdigiisa iyo nasabadiisuba Soomaali tahay waa inuu maanta quweeyo oo weyneeyo oo meel kasta uu joogo ku xusaa waxaanu sidii shalayba halkan golaha uu madaxweynuhu kaga baaqay aanu nabadgelyo uga baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya ama dhibaatadu ay ku dhex martay magaalada Duxmo ee kililka shanaad ee Soomaalida waxaanu leenahay dadka waxgaradka iyo isimada iyo dhaqanka iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyo dhammaan ciidamada qarabka sida ee dalka Itoobiya waxaanu ka codsanaynaa inay dhibaatada halkaa taagan wax ka qabtaan ayna ka sameeyaan nabadgelyo waarta waxaanu dadka leenahay walaalayaal dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay dagaalku idiinma fiicna waa siyaasad laydinku soo riixay oo ka timid gobollo iyo maamullo ka jira dalka weeyi waxaan leenahay walaalayaal nabadgelyadiinna ilaaliya degaan baatiin meel fog isagamaydaan iman waa walaal iyo seedi iyo sodog iyo duraashi iyo habaryar iyo eedo waxaan leenahay walaalayaal nabadgelyada hala ilaaliyo xabad joojin baanu ugu dhawaaqnay nabadgelyaanu ugu dhawaaqnay waxaanu ka codsanaynaa inay maqlaan oo u dhega nuglaadaan dadka waxgaradka iyo dadka ehelka ee u soo gurmanaya ayaanu ugu baaqaynaa inay maqlaan sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya Yaasiin Axmed Salow wuxuuna ka hadlay munaasabadan muhiimadda ay leedahay sidoo kalena waxa uu ka hadlay xaaladda iyo waliba shaqaaqooyinkii ka taagan deegaanka Duxmo waynaha reer Khaatumo khaasatan deegaankan gobolka Cayn munaasabadan iyada xorriyadii Soomaaliya ama isku darkii Soomaaliya oo ay ka soo wareegtay 12 sanadood waxaan aad iyo aad u xoojinayaa midnimada Soomaaliyeed inaanay marnaba ahayn wax laga wada hadli karo in aad idinkuna shacabweynaha reer Khaatumo muruqiina iyo maalkiina iyo maskaxdiinaba intaba aad ku taageertaan midnimada Soomaaliyeed oo aanay marnaba ahayn wax kala goy karaya waxaan aad u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba maanta waa maalin weyn oo taariikhda Soomaaliyeed meel weyn kaga jirta aan ugu hambalyeynayaa inay meeshay joogaanba ay ku salaaman yihiin aan rajaynayo maanta in meelo badan looga dabaaldegay oo lagu muujinayo sida midnimada Soomaaliya ay u tahay muqaddis aanay marnaba Soomaaliya u kala goy karin sidoo kale rag baa u soo dhintay oo u soo dhididay oo u soo rafaaday in ay Soomaaliya meel isugu keenaan oo ah maanta aynu halkaa u taagannahay waxaan yar ku darsanayaa arrintaa ka taagan Duxmo ee ah mid kulligeena wada khusaysa in iyada lafteeda aynu guntaga dhiishaas kaga dhigno si aynu uga hortagi lahayn khataraha halkaa ama ka soo socda ama ka dhacay imika dhibaatooyinka ka dhacay ee dadka walalaha uliya diirkeedaha la isugu dhiibay mindiyaha ee la isku diray ee uu inaga yimid xaggan gobolada waqooyi sidaynu ognahay ay ka shaqeeyeen si dhiigu u daato markaa Khaatumo gudaheeda ay isugu jeesato oo la iska ilaawo difaaca loogu jiro cadowga inugu soo duulaya waa gacan shooyo inugu jirta waxaan rajaynayaa iyaguna inay maqlaan oo ay fahmaan waxa meesha ku jira inaanay ahayn waxa iyaga laftooda gudahooda mushkilad ka timid aan ahayn ay tahay gacan dibadda ku jirta si la isugu jabiyo iyaga waxaan idinka codsanayaa
in inaguna aynu u guntano qolada is haysana beelaha iska soo horjeedana waxaan u soo jeedin lahaa inay ka waantoobaan waxay faraha kula jiraan oo ilaahay hortii ay isu daayaan oo ay dantooda eegaan madaxweyne maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo ka mid ah golaha madaxtooyada dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya ayaa isaguna halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay sidoo kalena madaxweynaha ay munaasabaddan ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in shaqaqooyinka ka taagan deegaanka Docmo waxa uu sheegay in wafdi ballaaran ay halkaasi u diri doonaan anigu ummadda Soomaaliyeed ee maanta nool marna waan hambalyeynaya marna waan tacsiyeynaya mar waxaan ku hambalyeynaya inay maanta ay ahayd maalintii dawlad Soomaaliyeed oo midii ay ka dhalato haddii bidkeeda leeyahay ciid Soomaaliyeed waan ku hambalyeynaya intii u soo dadashayna uga mahad celinaya marna waan tacsiyeynaya 250 sanadood la sheegay haddii bidkeeda inteeda badan ummadda Soomaaliyeed haddii bidkeeda leeyahay tacsiyun baa u taallay uma oolin waxay ku farxaan dhowr ilaa 10 sanadood burbur baa u yaalay xarbul ahli baa u yaalay waxa uu yaalay haddii bidkeeda leeyahay sidii 76 dagaal uga bilowday waddanka Soomaaliyeed ciidda Soomaaliyeed xabadii kama dil maalin aan xabadii ku dilin wiil Soomaaliyeed haddii bidkeeda leeyahay ama ku curiyaamin oo aan hooyo ku goblamin oo aan haddii bidkeeda leeyahay qof dumari ku nin waayin ama ku wiil waayin ma ay jirto tacsiib ay loo taalaba de markaas haddii bidkeeda leeyahay wax badan oo aynu ku farxano inoo yaalla ma jirto haddaynu taariikhda dib u eegno farxadda iyo damashaadku waxay mudan yihiin marka horumarka aad gaadhay midaad taaban karayso oo ku muuqanaya uu noqdo laakiin waxa inoo muuqanaya marka ay yihiin waxaa Docmo ka socdo oo kale haddii bidkeeda leeyahay 52 sano ka bacdi inaynu inagii weli reer labadii wada dhashay ay isugu jeesanayaan ee wax anugu halkan badan oo laga xafladeeyay iyo muuqato runtii yalkadeeda Soomaaliyadu way jiraysaa dhulkuna waa jiraya oo guuri maayo sinjiguna guuri maayo sidii ay ku dhalatay marunba iyo si ka wanaagsanba ku soo noqon doontaa insha Allah ta'ala innaga bilowday maxay ahayd inay markii hore Soomaalida deegaankan ka bilowday innaga markaan leeyahay waa deegaanka kan ka bilowday waa deegaanka Khaatumo ayuu ka bilowday halgankii Soomaalinimada loo raadinayo markii hore maanta horseed baynu ka nahay horseedna waa ka nahay buundada uu sheegay agaasimaha guudna haddii bidkeeda waynu nahay la isaga gudbayo Soomaalinimada haddii maamulka Hargeysa ay caadaysteen inay marba inta gidaar istaagaan sidii gabadh yar ay shukaansanayaan mid gacanta u haadiyaan haddii bidkeeda leeyahay waxba ku suuroobi mayso Soomaalinimaduna sidaa ku tegi mayso Soomaali bay dani ugu jirtaa inay haddii bidkeeda leeyahay maxay ahayd haddii ay rabaan inay Soomaaliya la heshiiyaan way ogyihiin cidda ay rabtay la hadlo inay Khaatumo la hadlaan baa rasmi ah wax ka yar ama ka badan toona ma jirto wala maamul federaal oo ay kula heshiiyaan baan jiri karayn wala maamul haddii bidkeeda leeyahay kale oo ama qof gidaar inta la istaago loo gacan haadiyaan kula jiri karayn wala saxaafad haddii bidkeeda leeyahay sawirka la soo dhiga yaan heshiis ka dhalin karaynin halka kan heshiiska Soomaaliyeed haddii ay raalli ka yihiin waa ummad Soomaaliyeed oo Soomaalida ka tirsan طريقة إلى ذا هو صومر وحن أنت أقول لها فيا هدي بتكذا ليه هاي شلي هي مالنتي مناسبة عن هنا بوا عن شانس كباع قاصوان هدي بتكذا ليه وان هذا قلبك كسود وشر هذا غير كيستين هي مامل كيس iskaga baxa nabadgelyo dalka kan uga baxa dalka kan nabadgelyo uga baxa dambaa ku jirta in laga wada hadlo wixii dhibaato jira oo dariiqa ay leedahay loo wada maro looga wada hadlo haday tahay Khaatumo iyo maamulka Hargeysa iyo haday tahay maamulka Hargeysa Soomaali weynba intaba hadii bidkeeda leeyahay dariiqi loo mari lahaa waa kan aanu taaganahay maanta waa kan aanu calankiisa iyo magaciisa huwanahay meel kale aad u mari kartaan ma jirtee waxaan bulshada Khaatumo haddii bidkeeda leeyahay gaar ahaan u leeyahay bulsho yahay dadaal badan xornimada intii u soo dhibatay oo kaliya ma ahayn intii haddii bidkeeda leeyahay SYS iyo kaliya ama daraawiish ka bilow ama kuwa kalshaala ku dhintay ka bilow
ama kuwa tukarra ku dhintay ka bilow ama haddii kale kuwa maalin walba maxay ahayd waxay u dhimanayaan iyaguba xorriyadda Soomaaliyeed ee kala go'a Soomaaliyeed inay soo taagan weeyaan waxay u dhimanayaan ma aha wax kala dana gaar ah ay leeyihiin ma aha حرب الأهل كلا يقول من المجر قبائل إسرائيل معها وصومال لما تشرتان كده واحد يكون ما تقول من يعني وقت تحسينين أنت الدنبير وأقولين هل قد حلال يكون أنت إلهي يهدي بكلي وابا الشهيدين هدي بكلي يقولون ما إنهم حياة الله ونحرست لك وراعين إلهي نحرست السمر وبرغمت لك وحال أنت كان وقت قدي وحوين هدي بكلي غير reer الله خير الله يدسي أبو قبل خير عينينه maxay ahaaytay dhibaatada tan iyo shaqaqada tan ducma ka jirta culayska ay mudan tahay inaynu saaro sidii ay u soo afjarmi lahayd weeyaan haddii ay baaq wax ku xalismi waayeen waxaan soo jeedinayaa wixii galabta laga bilaabo wafdi ballaaran oo maamulka ka socda iyo mid odayaasha maxay ahaaytay ka socda iyo mid muxuu ahaa maxay ahaaytay haweenka ka socda iyo mid dhalinyarada ka socdaaba inay baxaan oo u tagaan haddii bidkeeda leeyahay beelaha walaalaha meesha isku laynaya haddii bidkeeda leeyahay dhexdhexaadiyaan nimadaa waxay ku hagaagaano reer Bohol haddaad gacmaha isqabsataan dhibaatada kasta ee timaadaba haddii bidkeeda leeyahay maxay ahaaytay waad ka gudbi karaysaan midnama aan idinku baaqaynaa khilaafku haddii ra'yiga la isku khilaafo ma aha in dantii la isku khilaafay iyadoo danta laga siman yahay baa maxay ahaaytay ra'yiga lagu kala duwanaan karaa mashkalad ma laha dadkiina ra'yiga ku kala duwanaadaan wixii ra'yiga ku duwanaa ha ka wada hadleen caadi ha uga wada hadleen abwaan Yuusuf Suusle oo ka mid ah abwaanada deegaanada Khaatamo State of Soomaaliya ayaa isaguna halkaasi ku soo bandhigay gabay cajiib ah oo uu qaaday calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya calan yahow jacaylkaagu waa jaalle igu dheere jibadiyo kalgacalkaagu waa igu jicirteene jinaaxayga uunbaa tihiyo jidhka igu yaale adigoo janjeedhsaday inaan jiifo laga roone waa inaan jareeyaa sangihii jaa'iska ahaaye haddii aan jabaabiidi goyn juun ma dhalateene julay laguma taageen intay jamac midoobaane jabhad iyo qabiil baa la tegay jahoraddaadiiye jirriddaa lagu mudaado jayna ka hanweyne jirrida iyo mooryaanku waa jiil masiibo ah marun baa jaheeyuhu ka lumay janannadaadii marun baa jaheeyuhu ka lumay janannadaadii jaanjaannadii baa heliyo jaahil muruq weyne jeegaanta roobkiiyo markuu sida jir noo deeqay kuwa yidhi inoo kala jarjara jeesbadhanu guuriye iyo cadowga jeelku qabiyo juuca nagu reebay labaduba jawaab bay rabaan jaamac kadiyow anna jilib xarraan taaganoo laydjid mariyaaye waa jawrfal iyo eed wixii aan jiqla ahaaye dib baa loo jalleecaa wixii jaaniskaa lumaye meeshiiyo jid baalaan ahaa jooga daacadahe ninkii jayga yaacaba mar waa soo jimaacayaaye mar haddaan sidii jeena calaf jeexa ka hinraago jaawadaa la ii tumanayaa joojin qaylada ninkii jayga yaacaba mar baan soo jimbacayaaye dib inaan lagu jiidhahayn waygu jaamacay gabagabadii munaasabaddan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay si weyna dareenkooda farxadeed u muujiyay dadweyne aad u tiro badan iyadoo dabaaldegyaduna la filayo inay ka bilowdaan hoteelada iyo weliba qaybaha kale ee magaalada Buuhoodle Axmed Cabdiqaadir Jabaan Axmed Darwiish TV Buuhoodle ninkii kala saar lahu
kala soocwado ninkii si xun u fekero ninkii kala saar laho ninkii kala soocwado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale